السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن عبد الله أرزان وحنا halkan igu soo gudbin doona dooliyay sare Cabdullaahi Weedo dooliyay sare Cabdullaahi Weedo waa dooliyaha ugu qatarsanaa ciidamada cirka Soomaaliyeed dooliyay sare Cabdullaahi Weedo Maxamuud oo loo yaqaan jiro Weedo waxa uu ku dhashay magaalada Boolaburde ee gobolka Hiiraan sanadkii 1940 wuxuuna ka bilaabay dugsigiisa Quraanka Kariimka dibna dugsiga hoose ayuu halkaas ka dhigtay wuxuuna u soo ambabaxay magaalada Muqdisho halkaas ayuu ka bilaabay dugsiga dhexe iyo dugsiga sareba kolkii uu ka qalin jabiyay dugsiga sare ayaa waxa loo qaatay macallimo sanadkii 1962 waxaana uu ka soo shaqeeyay magaalada Baraawe iyo Shabeellada Hoose qayb ka tirsan kadibna waxa loo qaatay ciidanka cirka sanadkii 1963 dibna ayaa loo diray wadanka Ruushka xaq waxbarasho sida loo siiyo tababar xagga ciidanka cirka gaar ahaan dhinaca diyaaradaha farsamadooda waxaana uu sii gudbay in loo tababaro duulinimo ciidanka cirka wuxuuna soo joogay muddo 3 sano ah sanadkii 1965 ayuu ka soo laabtay wadanka Ruushka asagoo soo dhameystiray waxbarashadiisa duulinimo haday ahaan leed dhinaca farsamada diyaaradaha iyo duulinimada wuxuu soo qaatay xidig waxaana loo qaatay duulinimo ciidanka cirka diyaaradaha dagaal ee loo yaqaan MiG-17 MiG-19 ayuu duulin jiray sanadkii 1977 wuxuuna galay oo qayb libaax leh oo la meeloowaana ka qaatay dagaalkii 77 Ethiopia iyo Soomaali dhaxmaray waxaana madax looga dhigay ciidankii joogay halkaasi isla sanadkaasi waxa lagu xasuustaa asagoo dagaal diyaaradaha ku dhex jiro duulinayo kuna dagaalamaya ayaa laga qabtay hareeraha ayaa laga soo galay dib waxa lagu amray inuu ka jijiyo garoon halkaasi ku yaala The Prince Airport iyadoo mashiinka damin ayuu ka soo baxsaday xabashadii wuxuu ka soo jijiyay airportka Hargeysa Airport asagoo dhaawaca waxa loo qaaday dalka Talyaaniga حق عافمات عبد الله ويدو وحو دنتي 1984 عبد الله ويدو الله نحرسته جيش الصوماليين ما أركض دونا وسيدا الصومالي وصومرا